السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan rabaa walaalkay inaan kuu sheego arrin cajiiba arrintaas waxaad ka ogaanaysaa qalbigaada inuu nadiif yahay uu saliim yahay mise qalbigaada inuu marid yahay uu xanuunsan yahay labada xaalood waxa walaalkayo xilliga aad salaada ku jirtid qalbigaada waa qalbi xaaladee ku sugan ma qalbi ilaahay ku xiran baa ma qalbi ilaahay xaggiisa u khushuucsan baa ilaahay jannadiisa iyo ilaahay ku mashquulsan baa mise waa qalbi maxaan ku dhaha adduunyo ku mashquulsan iyo meel kale iyo xaaladahaada arrintaas waa lagu ogaan karaa qalbigaada inuu nadiif arrinta labaad waxaa waaye xilliga ay kugu dhacdo musiibada qalbigaada xaaladee buu ku sugan yahay ma qalbi calaacalka tiriya miyaa oo eedaya waxyaalaha ku dhacay maanta dhan calaacal wadaa mise waa qalbi maxaan ku dhaha ku sabra oo maxaan ku dhaha raali ku noqda qadarta ilaahay ku dhacda kadibna dhaha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun labada xaaladood waxay kuu fududeynayaan inaa ogaatid qalbigaada inuu yahay qalbi nadiifa ama qalbi mariidoo xanuunsan ilaahay waxaan ka baryaa quluubtana inuu ka dhigo quluubta ku xasisha oo maxaan ku dhaha ku degta dikriga ilaahay alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub haddii quluubteena noqoto kuwa dikriga ilaahay ku xasila xageeba u dambeynaysaa aladiina aamanuu wacamiluu الصالحات طوبى لهم وحسن مآب waxay u dambeynaysaa janno waa haddii quluubtana noqoto quluub ku xasisha dikriga ilaahay marka aan kala barano in quluubtana ay tahay qalbi micni quluub xanuunsan mise quluub saafiya aada u maasaytoona sii faafin kartaa khayrka wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu